السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داود يا الميل كستو دريدك جوجتان كسو دوادا عيد مجيد نتوي فضل سبسكرايب صار channel ka naguna soo biir tan ugu cusub tahay like tay share tan hay laagin marka muuqaalka dhamaysto waxaan rajeynayaa insha Allah taala inaad muuqaalo badan aad ka faa'iido doonto channelkeena. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يوم مقال كلا أو حسابنا داوديا ومركلة يو برامج كني مشروع على الدجالن كان نوركا أو قيبتي سلبادين داوديا تضبط كان أنا دي سو جود بنتورم سود هذا وحيري مركز أيا عبس يجو أبو رانتي وحنش على استئنانا هل كان إيمان waxaa si cod gudaha igala hadlay igu yiri xog badan aad ogaatid adkayso cidda ila hadlaysa maan garan beri dambe ayaan ogaan doonaa inay igu shaqaysanayo xoog ka awood badan kuwa aan ku biiray oo iyaguna igala haa ujeedo Paul uu i dareemay inuu buuq igu furan yahay waxaanu ii sheegay markaan koro salaanka kala sareynta inay cabsidu iga baabi'i doonto laakiin layga baahan yahay nafhurid lahaad leh wuxuu si toos ah iigu sheegay baahida xilligan keentay in loo baahdo dad Soomaaliya oo gudaha ka dagaalama oo noqda gacanta qarsoon ee noo fulisa danaha walaalaha madow waqtigan waxaan nagu adkaatay inaan dibadda kala dagaalano waliba wax walba way isbedeli doonaan marka la gaaro December 2016 waxaan jeclaystay in aan ogaado sababta xilligaas wax walba isku bedelayaan waxaad moodaa inuu maqlayo faqa gudahayga ka socda wuxuu ii sheegay xog aanan loo sheegi jirin xubnaha Dark Marow oo aan nasiib u helay in la ii furo sirtan waxaa la siin jiray inta darajadoodu ugu hooseyso 12 cidda fashilisana xukunkoodu wuxuu ahaa dil adna maanka ku hay inaad ilaaliso intaas ayuu hadalka ii raacay wuxuu igu yidhi hadda sixirkii aanu dhulkaas kula dagaalami jirnay wuu naga istaagay 2012 waxa kor u kacay wadda ruuxda aadamaha oo halis weyn ku haysa qorshaha weyn ee aan ku dhaxlayna awoodda dunida December 2020 2016 marka la gaarana waxa cirka ka soo muuqanaya xidig cusub oo awood badan xidigaas markuu soo daahiro ma shaqayn doono qorshe kasta oo aanu ka leenahay dhulka Soomaaliya dagaalka hore noo qorshaysnaa waanu fulin doonaa inta aan la gaarin 2016 dhulka Soomaalida waxaan qorsheynay in 5 maamul loo qaybiyo waxa sidoo kale 1864 ka aan miiska soo dhignay in marka la gaaro 2020 aan dhulka Soomaalida ka sameeyno 10 dawladood oo mid kasta cadow ku tahay tijaarka la una diyaar tahay inay daadiso dhiigooda halkaas markuu marinayo ayuu hadalkii jooji waxaanu ii sheegay in xogta inta ka hadhay la siin doono markaan fuliyo hawlgalka koowaad ee qorshaha gacanta la iga saaray qolkii madooba ayuu iga saaray waxaanu ii keenay qol dhiig ka soo urayo biyo ayuu madaxa igaga shubay waxaan markii koowaad u soo dhoofay dalkayga anigoo cadow ku ah dadkii aan ka dhashay 21 July 2007 ayaan ka soo degay madaarka Hargeysa cabsi ayaa dabooshay qalbigayga waxaase ay hore iigu soo sheegeen waddanka inaanu lahayn sirdoon difaac oo aad u xoog badan qolada qura
ee la igu dardaaray inaan ka feejignaado waa qolo wadanka ilaalisa oo suuqa iska joogta dadkuna aanay aqoon awoodooda iyo wajiyadoodaba. Judhiiba 2 guri ayaan ka kareystay masallaha iyo jigjiga yar. waa 2 xaafadood ee hawlahaaga si fiican ugu fushan karto. hawlahaaga si fiican aad uga fushan karto. ogolna in cid kale ku dhex shaqaysato. waxaan ku tala jiraa in aan hantiyo dhalinyaro fara badan oo gabdha iyo wiilalba leh. waxaan ku kasbanayaa lacag iyo indhasarcaad. mustaqbal qurux badan ayaan u sawirayaa. 2daas guri ayaan kula qaabtaa. hawlihii oo meel fiican ii maraya ayuu la soo hadlay. waxa laygu amray in aan tago gobolka Sanaag oo aan fuulo buurta Cirshiida. 2dii habeenimo ayaan fuulay. subaxii ayay fariin ii soo direen oo ay igu yiraahdeen xalay waxaad fuushay buurta sida sirta wadankaas. waxaase lay soo diray digniin laygu faray inaan degdeg uga baxo dalka oo noloshaydu khatar ku jirto. waayahay dhaadhaca daala markaan maraya ayuu nin cawlan nagu joojiyay buurta hoosteeda. wuxuu igu yidhi adiga iyo kuwa ku soo diray Sanaag ayay awoodoodu ku idlaan doonta. haddaad mar dambe timaadana waad eedi. haddana fariinta gaarsii walaalahaaga madow. cabsi ayaa igu dhacday. waanan baqay ilaa aan ka degay madaarka Heathrow ee magaalada London. Paul McMahon ayaan ku booqday xaruntii ururka. si diiran ayuu ii qaabilay wuxuuna ii sheegay in aan gaadhay meel ay iyagu ka baqaan. wuxuu ku daray inaan Sanaag qorshe ay ka leeyihiin. hadda waxaan kuu furayaa bog kale oo sir ah. wuxuu igu yidhi intii aan ku mashquulsanayn dagaalkii Ciraaq waxaa halkan laga taagay calan tawxiid leh. waanu garan weynay halka ay naga hoos martay. 1998 ayaan ogaanay in awood ka soo baxaysa halkaas. arrintii ayaa ay ka wada hadleen Mareykanka, Ingiriiska iyo Israa'iil. Ingiriiska iyo Israa'iil waxay yiraahdeen hadda aan la dagaalano. Mareykankuna wuxuu yidhi aan eegna sida ay u soo baxayso. haddaba waanu garan laanahay si aanu yeelno. wuxuu iigu daray in ay ciidamo geyn doonaan badda cas iyagoo abuuraya burcadbadeed ay ka dhigtaan foodsaaro iyo sabab ay ciidamadooda ku keenaan badda. waxaan arkayaa qorshihii oo u fulaya sidii Paul McMahon iigu sheegay. taas waxaa ka daran tamaanta socota. wuxuu si cad igu sheegay 2016 inay Somaliland ka soo weerarayaan dhinaca bari. haddaba daawada la soco qaybta 3 iyo waxa dhici doona.